Bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Muuqaalkan kooban waxaan ku baran doonaa sida loola soo dego applicationska inaga caawin doona inaynu flash garayno mobilkeena. Number one waxaan ka bilaabi doonaa programka koowaad ee la yidhaahdo FRB Hijack, kaasoo naga caawin doona inaynu geyno mobilkeena download mode. Waxaanu ognahay in mobilka mar haddii aan la geyn download mode uusan flash garaynta qaadanayn. Intaynan markaa Odin 3 u gudbin waa inaynu la soo degno FRB Hijack. Computerkaaga internet ayaad ku xidhan doontaa, kadib browserkaaga ayaad waxaad ku qori doontaa FRB Hijack. Saad wada arkaysaan halkan waxaa ku qoran download FRB Hijack. Marba sanadka waa raacin kartaa 2024, 2023 waa wada mid weeyaan ilaa 2025. Sawirkan ayaad soo raacaysaa tilmaanta hoose ayaad u socon doontaa biidnillaah. Kadib halkan waxaad ku aragtaan download, waxaad ku dhufan doontaa FRB Hijacker by Haggard oo zip ah. Isaga ayaan linkiga klik siin doonaa downloadka ku xiga. Kadib daaqad kale ayuu soo furayaa. Halkan ayaa marka waxaan ku arkaa sizekiisii oo ah 1.12 MB. Klik ayaan siin doonaa. Hagaag waxaad arkaysaan inuu sidaas igu soo degay FRB Hijack. Isaga halkaas ayaan uga baxayaa. Waxaan kala soo degayaa programkiisna Odin 3. Sidoo kale browserka halka sare waxaan ku qori doonaa Odin 3. Download ayaan raacin doonaa sida halkan idinka muuqata. Kadib linkiga koowaad ayaan raacayaa. Sida halkan ka wada arkaysaan laba version buu siiyey. Kana marka update ah oo ah 3.14.4. Isaga ayaan klik siin doonaa insha Allah. Daaqadan ayuu keenaya oo ah mega, oo si fudud iga caawinaysa inaan u download garaysto faylka. Kadib halkan sidaad ku aragtaan waxaa ku qoran download. Falaadhan ayaan kusoo dhufan doonaa. Kadib halka sare waxaan ka dooranayaa labadan option standard download. Kadib wax yar wuxuu bilaabi doonaa inuu halkan faylka ka soo dejiyo. Markaana wuxuu u gudbin doonaa inuu si caadi u soo dejiyo biidnillaahi tacaala. Waad aragtaan halkan waxaa ku qoran completed. Qaybta downloadkana waxaa la rabaa inuu markaa soo galo. Waa kan halkan ayuu isna ka bilaabay. Oo dabcan sidaas ayuu isaguna downloadkii ku wadaa. Halkan isaga okay sidaas ayuu kan ku dhameeyay. Halkan waxaa yaala FRB Hijack. Kaliya waxay naga dhiman applicationkeena saddexaad ee siibada inooga furiyay. Already aniga waa igu duuban yahay laakiin haddii aan search inta halkan ku qoro isagana waxaa la yidhaahdaa WinRAR. Marka waxaad raacin kartaa download, waa raacin kartaa barnaamijka. Kaliya isaga waxaan u isticmaalnaa in programkan wixii siibad ku xidhan siibada inooga furo. Toos halkan waxaad arkaysaan download inuu soo qorayo. Waan kusii dhufan doonaa. Okay, dhowr version ayuu soo saaraya markaa waxaad eeganaysaa un ka ugu sarreeya ayaad raacin kartaa. Haddii aad u baahan tahay waxaad samayn kartaa kuwan hoose luqadaha ayuu kala duwan ayuu ku sheegayaa. Marka waxaad iska dooran kartaa kan English ku qoran tahay 64 bit waa iska dhufan kartaa. Kadib isaguna sidaas ayuu ku saaraya. Waxaan leeyahay keep ayaan leeyahay. Mar waxaa dhacda in online marka wax lagala soo degayo uu yiraahdo faylkan wasakh ayaa laga yaabaa inuu wato laakiin waxaas oo kale okay ayaan leeyahay. Marka hadda saddex program way soo dhaceen. Waxaan toos u imanayaa marka downloadkeena ayaanu iman doonaa. Downloadkeena mar haddaan halkan waxaa inoo yaala WinRAR oo ah applicationkii inooga saareeyay programmada siibada. Laba jeer ayaan isaga klik siin doonaa oo aan ku soo dhufan doonaa. Kadib waxaan leeyahay install. Sidaas ayuu isagu ku wadayaa. Sidaas ayuu marka computerkeena ugu duwan yahay. Haddii kan uu ku soo baxana waad iska xidhaysaa.
winrarka saasaan ugu duubanay. Waxaa soo haray FRB hijack. Isagoo inta badan markaan furno 2 jeer ayaan ku dhufanayaa. Wuxuu wataa markaa password loogu talagalay marka lagu duubayo in loo sii gudbo. Marka sidan ayuu furmay. Folderkiisa ayaan sii furi doonaa. Waa softwarekii kan waa passwordkii file lagu soo diyaariyay. Ka passwordka ayaan marka hore furayaa si aan usoo koobiyeysto. Kadib passwordkan ayaa soo baxay. Waxaan leeyahay select gareey, kadib right click, copy, iska la soo tag. Faylka sare ee softwareka ayaan isna furi doonaa. Waxaan leeyahay run. Computerada kale laga yaabaa in next iyo wax noocaas idin soo saaro ama soo wax idin weydiin. Okay, hadda waxaan leeyahay next. Passwordkii aan soo koobiyestay ayaan ku paste garan doonaa. Ano taabanaya right click, kadibna odhanaya paste. Waxaan leeyahay next, kadibna install. Marka FRB isaga waxaan u isticmaali doonaa saan hore sheegnay inaynu ku geyno download mode mobilkeena marka aynu flash garanayno ama flash garaynta ka hor. Marka mar haddii mobilku uu joogo download mode, micnaheedu waxay tahay wuxuu qaadan karaa in lagu dejiyo ama lagu duubo flash fileka. Kadib launch inuu soo kaco ayaa tigta saaran. Waxaan leeyahay finish. waxaan sugnaaba waa FRB hijack oo soo kaca. Marka marmar wuxuu sameeyaa toos ayuu soo kaca. Haddii kalena Windowska oo kale ayaad taaban kartaa. Waxaad qoraysaa programka magaciisa ayaad qoraysaa adigoo daabacaya magaciisa FRB hijack oo kale. Waxaa leedahay FRB hijack waa kan marka wuxuu kuu soo qaban doonaa bidnillaahi tacaala searchinta caadi u soo qabanaya. Marka waa furi kartaa. Marka already hadda waa ii furaya uma baahin marka inaan tago. Sidoo kale Odinkii ayaan soo furan doonaa. La soo degay waa kan. Isla 2 jeer ayaan click siin doonaa. Waan sii geli doonaa folderka Odinka. Kadib ka ay u dambayso odin.exe oo laga wado executable file oo program ayaan 2 jeer furayaa. Run. Kadib waxaa soo baxaysa daaqad Chinese sidan oo kale far Chinese ay ku jirto. Marka waxaa leedahay okay. Hadda halkan waxaa igu diyaarsan Odinkii. Sidoo kale bartan waxaa ii yaala FRB hijack. Halkan waxaa ii yaala softwarekii mobilka aan ku duubi lahaa oo aan la soo degay. Siibadan aan ka saaray. Marka programka WinRAR san hore u sheegnay program loogu talagalay in programada siibada wata siibada laga saaro. Marka waxaan sameynaynaa program hadda softwareka caadiga aan la soo degay ee mobilka isagoo hoos bii yaala waa kan isagoo siibada ku jira. Laakiin folder baan ka dhigtay. Folderka saan uga dhigay wax kaliya ma sameyn. Kaliya waxaan sameeyay right click baan iri isaga. Kadibna waxaan ku dhuftay extract to tawo hooseysa. Marka 4 siibadood baa jira. Kaloon kale siibadiina ka saaraya folderna uu kugu ridaya. Laakiin kuwa waxaa jira hadaad extract iska dhahdid banaanka ku kala qoqobaya folder faylashiisi. Laakiin aniga tawo hooseysan ku dhuftay siibada. Mar hadduu WinRAR kugu duuban yahay tawo hooseysa iskaga dhufo siibadaha. Markaas wuxuu kaaga dhigayaa folder ayuu ku gelinayaa. Folderkiina waa kan marka faylashii uu ka koobnaa flash fileka oo gaaraya ilaa 7 GB dheeraad. Laakiin marka uusan siibada ku jirin ilaa 5 GB buu noqonayaa. Sidaa darteed iminka waxaa ii diyaarsan softwarekii mobilka aan ku duubi lahaa. Sidoo kale waxaa ii diyaarsan applicationskii aan uga dhigi lahaa kii FRB hijack oo ah download mode. Download mode-kana waxaan hore u sheegay in haddii download mode lagu dhufto mobilku uu tegayo shaashad buluuga. Shaashada mar hadduu joogana ay aad u fududahay in Odinkan uu ku duubo softwareka mobilka. Kaliya waxaad u baahan tahay programka siibada kaaga saaraya marka softwareka mobilka la soo degtay ay ku duubi lahayd FRB hijack uu ku geynaya download mode-ka iyo Odinka isagoo faylashan aad la soo degtay ku duubaya mobilka. Isaga ayaan marka kala soo degay mobilkayga oo ah A15. Binary-giisuna marka kayga xagga shanaad markaan ka soo tiri waa binary 5. Isagana muuqaal kooban ayaan hordhac uga dhigi doonaa sida binary-ga loo eego iyo chorus-ka insha Allah tacaala. Laakiin hadda waxaan u guda gelin doonaa inaynu ku duubano softwareka mobilkeena. Marka mobilkan flash garanayno maanta systemka ka bedelayno waa mobil ah Galaxy A15. Hagaag. Marka iminka waxaan ka dhigi doonaa mobilka download mode. Waxaan ka wada socon doonaa xagga shaashada mobilka xaaladda uu galana waxaan ku duubi doonaa camera kale ama mobile kale insha Allah tacaala. Computerkii isagoo ku tusay in download mode-kii la geeyay mar hadduu okay yahay mobilku uu jooga. Mobilkan xaggan ayuu inoo yaalaa oo waa kan daaqadaas ayaa lagu garanaya inuu diyaar u yahay in mobilka lagu duubo softwareka. Marka xagga shaashada computerka ayaan ka wada socon doonaa.
وهاجاج إمika waxaad aragtaan halka hoose inay ku qoran tahay added taasoo macnaheedu tahay in mobilka uu soo qabsaday USB-gu sida wada arkaysiina waxaynu joognaa download imika meelashan AB-ga BL-ka mid walba waxay noqonaysaa inaynu gooni u soo gelino inagoo ka bilaabaynaa BL mid walba kiis ayaynu gelin doonaa kaliya waxaa ka duwanaanaya CSC oo CSC-ga laba badhan buu yeelan doonaa markaan maraynan arkayna marka hadda waxaan ka bilaabayaa aan soo gelinayaa BL waxay noqonaysaa marka inaan raadiyo downloads kadib folderkii uu igu jiray oo kan ah ayaan sii furayaa kadib waxaan soo qabsanayaa BL ku sugu dhaqso ayuu soo galayaa AB-ga ayaa haddana soo gelin doonaa oo waxaan baari doonaa isna AB-giisa marka faylkan AB-gu isagu waa ka ugu muhiimsan oo culayska badan ayuu keenaa sababtuna waxay tahay faylasha ugu muhiimsan oo dhan baa isagu uu wataa waxaa laga yaabaa inuu daqiiqado badan ama waqti badan uu ka qaato isaga intaad sugaysid waqti uu kaaga dhaco laakiin dib ma laha oo shay walba markaad kiisan gelisid kuwa kale way ku fududaan doonaa marka BL baan gelin doonaa AB CB kaliya CSC-ga ayaa ka duwan isagana waa isla arki doonaa markaan marayno marka laga yaabaa inuu sidan oo kale uu kaaga cuslaado markaad maraysid isaga AB-ga marka wax yar waa iska sugaynaa insha allahu tacaala waa kaa ugu dambeyn oo inoo soo galay waqti badan buu naga cunay laakiin dib ma lahan hadda waxay noqonaysaa inaynu gudubno CB-ga ayaan click siinayaa anigoo raadin doonaa CB-ga si kale waa kan hamar ku dhufan kartaa obinna waa leedahay laba jeerna click waa siin kartaa ugu dambeyn CSC ayaa inoo dhiman oo CSC-ga wuxuu uga duwan yahay markaan click siiyo isagaan kusoo dhufto kadib laba CSC ayaa gudaha ku jira waa kan ka haddii aan gelino CSC-giisaas mobilka waxa data ku jiro dhan wala dhaqaya ama xogtiisa dhan wuxuu ku sameeyaa wax la yiraahdo data wipe oo xog uma badbaadiso qofka mobilkiisa laakiin haddaan CSC-ga aan geliyo home CSC-ga hoose waxa noqonaysaa in xogtii qofka aan laga dhaqin mobilku sidiisii ahaado sidoo kale waa la flash garanayaa laakiin adigu mar walba CSC-ga sare haddaad rabtid waa la dhaqayaa mobilka laakiin CSC-ga hoose haddaad soo geliso CSC-ga ee home ku qoran tahay mobilka xogtu way badbaadaysaa isaga ayaan markaa soo gashanaya bidnillaahi tacaala okay wuu soo galay markaasi aan u hubiyo waxaan sameynayaa aan u bilowno barnaamijkeena badhanka hoose ay ku qoran tahay start ayaan ka bilaabaynaa isaga ayaan kadib wax yar halkan haddaan soo dhaweeyo sare waxaad arkaysaan inuu bartaa sare uu kaga gurayo laba fariimood uun baan rabaa marka halka odinka aan zoomti geliyay inuu soo qoro waa fail ama baas marka haddii uu baas noo soo qoro moolkeeni sidaas ayuu ku flash garoobay oo wax guldara kamayna wajihin marka haddii laakiin uu inoo soo qoro fail moolkaas waa ku noqosho halkan hoose marka waxaan sawir baan idiin soo dhigi doonaa moolka xaaladda uu noqdo marka maadaama aanan haysan kaamirada kale iyo cid kale iga caawisa marka waa iska qoto bidnillaahi tacaala okay marka mar haddii halkan aad ku aragtid baas micnaheedu waxay tahay wuu ku duubmay marka halkan waa kan moolkeennii uu inoo soo kacay marka mar haddii CSC-geeni aynu home ka dhiganay wax xoga nagama baxay marka taa boqolka boqol welwel kama qabno laakiin haddii sidoo kale fail aanu arki lahayn ma flash gareysmin CSC-ga uun iska ilaaliya haddii qofku markuu flash garanayo failka CSC-ga soo geliyo waa data wipe waa xogta ku jirto dhan waa la reset garaynaya waa la dhaqayaa laakiin CSC-ga haddii aad ku bedesho home CSC wax data kaa baxaysa arki maysid xitaa sidaad aragtaan sawirka xitaa log screen-ka kuu saarnaa isma bedelayo marka keliya waxaad iska hubisaan passwordkaygan halkaa haddaad ka qashtaan hadda kadib ha iga furanin taasna waa kaftan marka halkaas ayaan kaga bixi doonaa aan ku joojin doonaa cashirkeenii halkaas waxay noogu dhan muuqaalkeenii koobnaa ama cashirkeenii aynu ku barinaynay sidee loo flash garaya ama software looga bedelaa mobile Samsung ah inagoo stebiska raacaynay ama ku daraynay tallaabooyinka aynu qaadayno inaynu ku duubanno lana soo degno softwareskii ama toolskii naga caawinayay inaynu flash garayno muuqaalkan waxaa idiin soo jeedinayay anigoo ah Ibrahim Ismaan Cabdinuur waxaan idin ka codsanayaa si aynu muuqaalo kale oo waxtar leh aynu usoo gelino bartayna YouTube in aad subscribe garaysaan muuqaalkana like saartaan wixii faalla ah iyo comment iyo meelaha casharka aad isleedihiin oo su'aal ayaa ka dhalan kartaa maadaama aan jeclahay mar walba halkan commentigan idinku jawaabo nala wadaaga muuqaalka xigeentan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa amaana Allah